Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib. Maanta waxaan diiradda saari doonaa mustaqbalka tiknoolajiyadda sida ay wax badan nolosheena uga bedeli doonto. Ku soo dhowaada mowduuca maanta. Maxaa la filayaa sannadda 2050 duni gebi ahaan wada tiknoolajiyad ah insha Allah. Wax badan oo nolosheena ka mid ah ayaa isbeddel ku socdo, waxaana sababta ugu weyn leh tiknoolajiyadda. Casrigan aan noolnahay waxaa jiro waxyaabo badan oo laga guuri doono ama la iska dayn doono. Ganacsiyada sida shidaalka iyo enerjiga la xiriiro ayaa isbeddel ku imaan doono, waxaana loo guuri doonaa solar system. Sidoo kale waxaa si toos ah u xirmi doono gas stationska, waayo waxaa isbarbar socda horumarro waaweyn oo laga gaarayo gaadiidka ku shaqeeya korontada iyo solar systemka. Waxaan ka hadlayaa gawaarida caaqilka ah, gawaarida keligood iskaxeeya, nolol dhammaan la wada fududeeyey. Dhanka kale waxaa laga baqayaa shaqo la'aan baahsan inay soo wajahdo dadka dunida ku nool, oo la filayo in ay kororto tiradooda sannadda 2050. Qiyaasaadka ayaa lagu sheegay in ay gaari karaan ilaa iyo 10 bilyan oo ruux. Looma baahan doono wax shidaal ah. Gawaarida waxay baawar ka heli doonaan qoraxda, si degan ayaad ku jaajaraysan doontaa gaarigaada. Horumarka dhanka iyo tiknoolajiyadda waxaa tusaale kaaga filan 10 sano ka hor nolosha waxyaabihii kugu hareeraysnaa. Maantay waa waxyaabo laga soo gudbay. Isbeddelku wuxuu ku imaan doonaa dhanka iyo caafimaadka, nolosha gebi ahaan habka aan u noolnahay maantay. Qof kasta oo horumarka la rajaynayo xilligaas gaaro wuxuu si toos ah u isticmaali doonaa moobilkiisa, asagoo hagayo gurigiisa, xafiiskiisa iyo dhammaan dhismayaasha smartiga ah. Internetka wuxuu noqon doonaa mid dadka oo dhan ay isticmaalaan. Hadda waxaa la qiyaasayaa dadka aan haysan internetka inay gaarayaan 3 bilyan, halka 4 ilaa 5 qiyaas ahaan ay haystaan internetka xadidan. Shirkadaha kale ah Facebook, Google iyo SpaceX ayaa qorsheynaya inay internet gaarsiiyaan dunida oo dhan, kaasoo isbiidkiisu yahay 1 megabyte per second. Robodyada dadka loo ekaysiiyey ee aan aflaanta ku daawanay ayaa meel walba dadka ku caawin doono. Dhanka iyo caafimaadka, tiknoolajiyaddu waxay kaalin wanaagsan ka geli doontaa la tacaalidda xanuunada halista ah ee kala ah kansarka, aydiska, diabetiska iyo qaar kaloo badan. Tiknoolajiyadda ayaa dhanka caafimaadka door muhiim ah ka qaadan doonto. Dadka dunida loo shaqeeyo ayaa adeegsan doono beddelka dadka robots, kuwaasoo caaqil ah. Taasi micnaheedu waa in horumar dhan walba la samayn doono. Insha Allah, shaqooyinka dabargo'ayo iyo shaqo la'aanta ay sababi doonaan robotska beddelkooda ayaa Rabbi keeni doonaa. Dalkayga Soomaaliya waxaan rajaynayaa inay liiska sare qayb ka ahaadaan horumarka tiknoolajiyadda lagu wado hadduu Rabbi idmo. Ugu dambeyn, daawadaha sharafta leh, waxaa iga su'aala, dalkeena horumarka dhanka iyo tiknoolajiyadda heerkee ayuu ka gaarsiisan yahay dhanka iyo Afrika? Fadlan ha hilmaamin subscribe inaad saartid janaalka, sidoo kale like saar muuqaalkan, sheertana ha ka hilmaamin. Intaasi waan kala mudannahay. Waxaan ku leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.